Bannaanbax kooban oo saameyntiisa watay ayaa maanta waxa uu ka dhacay wadada xiriirisa degmooyinka galbeedka, isla markaana isgoyska caanka ah ee aadka u saxmadda badan ee loo yaqaan Ex-Control Afgooye ayaa inta badan bannaanbaxyadu isugu yimaadeen iyagoona dhammaan jaraya waddooyinkii soo gelaya isgoyskaasi. Dadkan shacabka ah ayaa waxa ay degan yihiin warshadda daawada, iyagoona ka gadoodsan tallaabadii lagu amray in ay halkaasi ka guuraan. Dibadbaxyada careysan ayaa waxa ay sameynayeen rabshado, iyagoona taayiro ku gubaya waddooyinkii la isticmaali lahaa, waxaana saacado kooban maanta hakad galay isu socodka dadka iyo gaadiidka, iyagoona bannaanbaxyada qaarkood ay adeegsanayeen dhagxaan iyo birooyin oo ay u adeegsanayeen dadka isku daya in ay isticmaalaan waddooyinkaasi.